عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا شني بالكعصون له كسر هذا الشانل كي قمر والبقلب فرن حدا بقى قصة كانت عيط لو ما محنا كانوا فرديا معلم والبدء واحد يقبرته واحد شديد واحد عصب واحد نيو يقفصه ويقعده هذا بعد تذكر سبتاع الشانل كي جا إلهنا لايك رئيسه شير رئيسه كومنتين إن شاء الله هو صديق وسقطان سبسكرايب كنا بوم أكاسيسا أدبنكم ما سنتي ولا تنمي تعال كمر والبعد اللي قرب تاجنتين إما كنا هنسقسي بلعبانهم وجرتا قصة آدو يا بدن هذا وتلوى محي قصة داس إن كل ضد بدن ويا بدونان ضد بدن وحيونان دونان دوا محن كرادو واحد دويدا كدعا هذا بقبر بقصة اللي سو ذاكتي إن وحنو بحنا مجيئة حنت لو بحنا قبر مجيئة هذا بنعمل واحد تري إن أنا جواني أخرناياك بعدين وان وانسي شرحي دونا بنقولنا وح ليه محن كرادو إن فكر كينا إن شاء الله خاص بدي يجوا قري دونتان هنسي آخر النعيم وحي ترى هذا بقى وحي تري السلام عليكم بيتري وانكو سلامي أديك يدمان ولا لها كوجو حرن حنو لنا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ملاك تقصى سلامته ولا القالي أدبان حاجة قادنا دمان تيو إن قصة أد يجوا قصلسي أن ويجا نحسدنا هذا بوحي تري نعيمي إن ولا لو السلام عليكم ولا لو يتري ما في عنتها هاي حالة كورن بكوريسيسي وحي تري وين السلام يا وينو كقادنا مر لبعض waxay leedahay naciimi walaalo waxaan ku noolahay wadanka Sweden bay tiri jira 28 sano waxaan walaalo ku noolahay wadanka la yiraahdo Sweden waxaan ka imaaday bay tiri wadanada Soomaaliya waxaan u imiday qof aan jecelahay dartiis baa waxaan soo maray dhibaatooyinka inta leeg iyo maxaan ku raas saxaraha iyo waxyaalaha aad arkaysa marka la soo tahriibayo la soo maray bay tiri gabadhii naciimi waxay leedahay walaal macaani markii aan imaaday wadankan waxa mala kara qurux badan anigu akhriyana niga sheekayo mala Soomaaligu ugu yaragaagaleeya marka kor akhriisiraado waxay tiri waxaan imaaday wadankan si aan ula kulmo qofkii aan jeclaa ka bacdi waxa igu dhacday bay tiri qisa aad u qosol badan aadna u naxdin badan hadaba talo waa maxay qisada naciima ku dhacday naciimi waxay tiri marka wadanka bila joogo baan kulanay wiilkii ilaahayna uu iga soo nabad yeelay saxarihii iyo dhibaatooyinkii markaan kulanay muddo ka bacdi waxay tiri waxaan baray gabadhaanu saaxiibnahay ayaan baray bay tiri wiilkii waxay tiri labadeedu waxa naga dhaxeeyay jacayl iyo ahdi baa naga dhaxeeyay bay leedahay naciimi waxay tiri markaan inankii inantiis baray anigu waxaan ka dhiganayay bay tiri waa walaasha iyo waa garabkaagii waxa dhacday bay tiri in la sameeyo xiriir hoos ahaaneed ama relationship qof sida uu yaqaano baa la sameeyay bay tiri muddo ka bacdi waxay tiri anigu miskiin baan ahay oo gurigaan imaadaay waan uga sheekayaa bay tiri maalin walba maxaan ku raadaa anaga iyo jacaylkayga iyo xagaan kala marin in hawlaha igu soo dhow yihiin bay tiri naciimi muddo ka bacdi waxay tiri waxa igu dhacday tiri muddo ka bacdi waxa igu dhacday in la yiraahdo kaalay nagala soo qayb gal xaflad caawa la dhigi doono hotelkaas ku yaala xagaasi waxay tiri hotelkii ayaa baan tagay markaan hotelkii tagay xafladda talo waa cid dhiganaysa xafladda waa saaxiibadeed ay nafteeda ku aamintay ee qofkii ay jeclayd ay tiri baro waa kan hebele ayaa baa khiyaantay hadaba qisadu waxay qosol soo ahaataba aniga waxay la ahayd wax qosol markii hore qof aan soo taariibay waxaan sheekay la ahayd waxay tiri gabadhii waxa igu dhacday in la yiraahdo xafladda ka soo qayb gal xafladii aan ka soo qayb galayna bay leedahay waxa igu dhacday qof anigu isbaray hadaba bay tiri walaalo hiboy naxdin daraadeed bay tiri iska daa lugahe hatta waxaan ku istaagsanahay ayaan garan waayay bay tiri markii ay xafladii muddo waxooga ay socotay ayaabaan doorbiday inaan iskaga tago meeshan hadaba waxa soo orday bay tiri inaan saaxiibkiiya waxana uu igu yeedhay naciimo xageed u soconaysaa waxana ku yiri bay tiri walaal gurigii baan qabanaya wuxuu igu yiri bay tiri sheekadani waa sheeko aan wada ogeyn muddo dhan soo socotay waana ka xishooday ama ka qanjilay inaan adiga ku sheego maadaama ay leeyihiin xiriir hoos ahaaneed aniguna waxaan doorbiday inaad maalinkaasi aad aragto guuray tiri wiilkii naxdin baabay heshay anaga la lagu sameeyay waa kan hawshii uu wada sheegay wuxuu iga yiri tiri walaana ku sii waday gurigii baan inday hawsha dhan biiga sheekeeyay waxay tiri isla aruunimadii markay ahayd wiilkii soo wacay wuxuu igu yiri tiri gabadhan meel uma buuxinayay wax jacayl oo ma hayo
markaa waxay leedahay walaal maxaa ila gudboon oon sameeyaa qofkan waan jecelahay oo kama tegi karo una khiyaamay fikirkiisa insha Allah hoos buu soo qori doona aniguna wixii fikirkayga hadda ma xagin ka dhiibanaya hadaba naciimay walaal anigu waxaan ku gula talin lahaa haddaan hiba ahay ama bahda hiban u nahay qofka bila aadanka walaal mar buu qaldami karaa qaladkiisana uu ka soo noqon karaa ceebna ma aha bila aadanku way qaldamaan balse qaladaadku walaal way isdhaamaan qofkan ma qof uu xiriir u guur iyo wax niga dhaxeeyba mise waa xiriir jacayl qof niga dhaxeey hadaba haday tahay xiriir jacayl qofkan uu niga dhaxeeyay oo wax guur iyo wax maxaan ku raadayay reera una in dhaxoolin aniga waxaan ku dhihi lahaa hiba ahaan fikirkaygana ahaan waxaan ku dhihi lahaa de qofka maanta adigu soo hortaagan intuu khiyaamay saaxiibada raacay ma kana kula meel baan u buuxinay meesha uu buuxinay maxay tahay balse hadayba dhacayso meel u buuxinay mu adiga kula soo wadaago aniga waxaan ku oran lahaa walaal naciimay meeshaasi waxa la iyo wax ku yaala ama wax kuugu dambeeya midna ma jiro دستيلات سناتاي قف وين متهيد قف دليراتاي waxaan ku dhihi lahaa insha Allah nolol taasi dhaanta raadso hadii aad soo martay saxarana wax dhiba ma jirto walaal iyagoona maxaan ku dhaday ama jacayl iyo waxaasiba jirin bay aanu soo marnaa oo soo tahriibnaa oo soo dhibaatoona si ay nolol u helno hadaba adigu waxaad raadinaysaa jacaylkaaga waxana laga yaabaa qofkaas inuu naahayn qofkii adiga ku qalmay oo isla meeshaasi uu kula joogo ama adiyada dacladeedaba uu joogo naciima walaal waxaan ku leeyahay hore u soco waanad ku mahadsan tahay sida sharafta leh walaalnimada leh ee ila soo wadaagtay qisadaada aadka u quruxda badan leh insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inaad maalinteeda adii soo qori doonto adigoo faraxsan adigoo qof kale nolosha la wadaagay aad baan ugu faraxsanahay adiga iyo inta walaalaheeya ee qisada ila soo wadaaga maalinba qisada ka sii daran tahay de kulay waynu wada eegi doonaa waynu wada joogi doonaa intii naciima qof walba wuxuu ugu taageersan yahay walaasha naciima insha Allah hoos ugu soo qora naciima kulay adiguna walaal xagga wad ka akhrisan doontaa commentiga igala إن شاء الله إيجالن صحيح السوشيال ميديا يقعدوا يلاقي رجع حكنا صوري جدونا أدبنا تقوم سنتين مرة والب تعوش هذا وعن ولا لماذا شعائل كأدمر والبيت قرب تاجنتين أنا ونص دعيو أدبنا شعلان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.